saxo maqal saafiyo asalu lahayn somtel ugu hagaag telefoon saxo maqal saafiyo asalu lahayn somtel الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي أبون داوديال ميل كستو تكسجنتين ومركلة إيو برنامجكي كسمال أو بيل كستو رمضان عاد كلا سعوتان انقار كميدا تلفزيون دا أفكا صومالي وكهاد لي وليبا راديو أركيسة إن ساكا وحن هالكنو فردنا وحفلتي فروتانكا برنامجكا كسمال إن runtii barnaamijka kasmaal in badan ama sanado badan ayaad la socoteen oo aad si toos ah u daawanayseen waana barnaamij inta badan ka hadla ama xooga saara sidii bulshada uu ugu abuuri lahaa ama se uu wax u bari lahaa isla markaana wax ku celin lahaa xafladda furitaanka ayaynu bilaaban doonaa ee barnaamijkeena kasmaal waxaan ugu horeyn u yeedhi doonaa khadar cabdiraxmaan cabdilaahi madaxa suuqeynta shirkadda somtel oo isagu faahfaahin ka bixin doona barnaamijkan kasmaal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وورين رمضان كريم دمان بالكم وحكي السلام منا بالشدة الإسلام كميل كسائي شوغان با يدو إن لنا رمضان كريم كل عام وأنتم بخير دمان تالكم وحينو فردنا وحوي فوريتانكي حفلة برنامج قوانيت كسمال برنامج كسمال سيدان كور قبنا ورمضان كستوها صوت يارسا شركة سومتل يجودهان با إن عد كستو كلا شقيسو كمديهين أبوانا دا تيفي دا يجودهان با بهذا كسمال يدو اسكتوبان barnaamijka kasmaal sanadkan uu toban jirsaday oo waa sanadkii tobnaad ee shirkadda Somtel ay barnaamijkan qabanaysay barnaamijka kasmaal waxa uu ka kooban yahay in ka warhaynaba wax xambaarsan yahay guud ahaan waa aqoon gaar ahaanna wuxuu ka kooban yahay amba uu xambaarsan yahay dhinaca dhaqanka iyo dhinaca diinta iyo dhinaca taariikhda iyo guud ahaanba aqoonta guud barnaamijkan kasmaal waa barnaamij guud ahaanba ay ka faa'iideystaan bulshada qaybaheeda kala duwan sida dadka waaweyn iyo dhalinyarada iyo cid kasta oo maxay ahayd danaynaysa dhinaca aqoontooda inay kor u qaadaan barnaamijkan kasmaal oo shirkadda Somtel hadda ay wado sanadkii tobnaad waa mid aanu insha Allah rajaynayno in aanu halka ka sii wadi doono isla markaana sanadba sanad ka dambeeya aanu kor u sii qaadi doono sanadkan sida aynu ka warqabnaba waxa lagu jira xaalad waqtigan culus ee ku jirnay coronavirus-ka lagu talagalay in bulshada guryahooda joogaan xafiisyada joogaan isla markaana dhammaanba maxay ahayd isu imaatinkii iyo goobihii lagu soo ururiyay la yareeyay amba la joojiyay barnaamijka kasmaal sida aynu ogeyn wuxuu caan ku ahaa in ay ka soo qayb galaan daawadayaal fara badan kuwaas oo ka qayb qaadan jiray barnaamijka ka jawaabi jiray su'aalihiisa isla markaana caawin jiray dadka tartamayaasha ee barnaamijkan lagu soo martay qaado sanadkan inaga oo raacayna shuruucda dawladda iyo guud ahaanba caafimaadka oo amirta layna siinayo ee ah inaan maxay ahayd la isu soo dhawaanin amba inaan dadku meel aanay goob sidan in aad aanay iskugu imanin waxaynu ugu talagalay in aynu joojino sanadkan dadkii isu imanayay isla markaana barnaamijka sanadkan aynu bedelo qaab casri ah oo ah live in aynu bulshada ku booqano guryahooda iyo xafiisyadooda iyo meelaha ay joogaanba sanadkan waxaan rajaynaynaa insha Allah barnaamijku inuu noqdo mid uu booqan doono qof kasta oo kamid ah maxay ahayd daawadayaasha dadka ku xiran barnaamijka kasmaal waxaan ku booqan doonaa guryahooda isla markaana waxa ay ka qayb qaadan doonaan hab live ah amba hab maqal iyo muuqaal ah waa mid aynu ugu talagalay in xaaladan lagu jiro ee coronavirus-ka guryaha la joogo in aanay ka baaqanin bulshadu ka qayb qaadashada barnaamijka kasmaal marka barnaamijka kasmaal sanadkan isaga idin soo booqanayo idin ku imanayo goobihiina isla markaana waxaan rajaynaynaa insha Allah sidii aad walba uga qayb qaadan jirteen iyo sidii aad ugu tartami jirteen iyo sidii aad uga faa'iideysan jirteen aqoonta guud iyo aqoonta gaar ahaaneed ee barnaamijka kasmaal uu xambaarsan yahay inaad insha Allah uga faa'iideysan doontaan waxa kale oo uu sheegaynaa macaamiisha shirkadda Somtel iyo guud ahaanba daawadayaasha barnaamijka kasmaal in sanadkan aad ka daawan doontaan meelo kala duwan iyo TV kala duwan oo uu hormood u yahay TV-ga qaranka Somaliland ama Somaliland National TV radio Hargeysa oo uu kamid yahay TV-da aad ka daawan kartaan badda cas baa kamid ah waxa kamid ah Sahan TV baa kamid ah waxa kamid ah Som News baa kamid ah waxa kamid ah Bulsho TV baa kamid ah Horyal TV baa kamid ah waxa kamid ah oo kale oo aad ka daawan doontaan insha Allah True Cable TV iyo guud ahaanba TV kale oo aad maxay ahayd barnaamijka si toos oo kala socon doontaan saacadda uu soo galiya waa saacaddii walba aad maxay ahayd barnaamijka u barateen oo ah 9 fiidnimo ilaa 10 fiidnimo marka barnaamijku wax badan oo iska bedelaya habkiisii uu socon jiray ma jiro marka laga reebo in bulshadii isu imanaysay iyo daawadayaashii imanayay ee tooska ahaa lagu bedelay in sanadkan anagu aanu bulshada ku booqan doono guryahooda iyo xafiisyadooda oo hab live ah amba maqal iyo muuqaal iyaga aanu ugu tagi doono isla markaana ay guryahooda iyagoo jooga ka faa'iideysan doonaan barnaamijkii kasmaal waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa oo 10 sanadood ee barnaamijkan socdayba aan u mahad celinayaa cid kasta oo ka soo qayb qaadatay oo gacan ka geysatay oo ay ugu horeeyaan abwaanada barnaamijka tacabka badan geliya abwaan Yuusuf Shaacir iyo abwaan Maxamed Bedel
sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland iyo TV-ga qaranka iyo sidoo kale maxay ahayd Radio Hargeysa oo iyaguna door muhiim ah 10 sanadood ka soo qaadanayay isla markaana barnaamijka halkan soo gaarsiiyay waxaynan ilaabi karahayn waxa weeye waa soo saaraha barnaamijka Cabdirasaaq Kasmaal oo isaguna runtii 10 sanadoodba barnaamijka si la yaab leh oo runtii xirfadaysan oo bulshaduna jeceshahay u soo gudbinayay waxa kale oo mahad celinayna dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay barnaamijkan sida Real Video oo iyaguna soo saara barnaamijka iyo guud ahaanba cid kasta oo gacan ka geystay barnaamijkan Kasmaal barnaamijka Kasmaal marka la daawanayo waxaad moodaa aqoonta guud mooyaane dadku inaanay fahmin culayska badan iyo tacabka badan ee la geliyo laakiin waa barnaamij laga shaqeeyo muddo aad u badan runtii hadday noqoto diyaarinta su'aalaha hadday noqoto soo martiqaadida bulshada kala duwan ka qayb qaadanaysa hadday noqoto diyaarinta ama productionka maxay ahayd video quruxda badan ee aad daawataan iyo barnaamijyada qaybihiisa live-ka tafatirkiisa hawlihiisa runtii waa barnaamij aad u ballaaran waana barnaamij runtii tacab badan uu galo oo maxay ahayd shirkadda Somtel iyo cid kasta oo kala shaqeysa ay tacab ka geliso insha Allah waxaan rajeynayaa in sanadba sanad ka dambaysa barnaamijkan si horumarin doono sanadka waxaynu ku soo kordhinay waa barnaamijku inuu yahay live oo idin soo booqan doono xarumihiina idin ku iman doono insha Allah barnaamijka Kasmaal laga bilaabo maanta amba caawa waxaad ka daawan doontaan TV-da aan hore u soo sheegay waxaanu noqon doonaa mid si joogto ah insha Allah aad uga faa'iideysan jirtaan sida awal baad uga faa'iideysan jirteen waxaanu mahad celinayaa dhammaan martida sharafta leh ee nagala soo qayb gashay furitaanka maanta oo ay kamid yihiin wasaaradda warfaafinta iyo jaamacadda Hargeysa abwaanada diyaarinaya barnaamijka iyo cid kasta oo maxay barnaamijka nagala soo qayb gashay aad iyo aad baad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh xafladina ayaan hore ugu sii socon doonaa markan waxaanu yeedhi doonaa abwaanada inta badan su'aalaha barnaamijka soo diyaariya waxaan ku hormarin doonaa Yuusuf Shaacir guud ahaan waa salaamaya bulshada islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh saaka aynu joogno barnaamijkii Kasmaal furitaankiisii sida la sheegay sanooyinka badan barnaamijku soo socday baan ugu hadlaynay hadal badan oo saas naguma harin waana rabadaan marka waxaan aan oran lahaa barnaamijku fariinta uu sida magaciisa ka muuqataayo barnaamij aqooneed hadday diin tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday aqoon kale tahayba waa barnaamij aqooneed annaguna intii itaalkaya ah waanu samaynay kullayba bilaad baanu laga yaabaa in wax naga khaldamaana leano maxay yeelay barnaamijku waa barnaamij aad u dheer su'aalihiisu fara badan yihiin meelo badan la xiganayo oo hadday buugaag tahay iyo hadday website tahay iyo hadday meelo badan aad xiganayso marka waxaan rajaynayaa inuu noqdo barnaamij faa'iido leh oo bulshada waxtar u ah oo wax ku soo kordhiya inuu noqdo insha Allah bishii Ramadaan baynu ku jiraa aafooyinka wareegayana Ilaahay hayna baal mariyo wixii islaamaba iyo ummadda adduunyadaba Ilaahay ka qabto intaasaan ku soo koobaya wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ay doona abwaanka kale isaguna inta badan su'aalaha la soo diyaariyay Yuusuf Shaacir waa Maxamed Bedel oo leeyahay ku soo dhawo barakaysanay Ramadaan inaynu caafimaad qab ku soo gaadhno marka xiga waxaan u mahadnaqayaa shirkadda Somtel madaxdeeda oo inagala joogo Khadar Cabdiraxmaan oo isagoo ah hormuudka barnaamijkan shirkaddana u qaabilsan madaxa suuqgeynta waxa kale oo u mahadnaqayaa Cabdirasaaq waa Cabdirasaaq yare aniga xaggayga Cabdirasaaq yaru ka yahay waanu sognaayay oo isaguna ah wariyaha hawlkarka ah ee aan ka daalin tabinta iyo qaadadhiga barnaamijkan waxa kale oo mahadnaqayaa dhammaan bahda saxaafadda oo inagala joogo odayga weyn ee saxaafadda Maxamed Cali Waji intaa kadib barnaamijkan Kasmaal waa laga soo sheekeeyay aniguna runtii wax badan ku dari maayo laakiin aniga iyo Yuusuf Shaacir barnaamijka diyaarintiisa waxba kala ma hadhno aqoonta aanu soo gudbinaa maaha ta anagu aanu naqaan ee waa to anagu aanu kororsanno oo aanu ama bugaag ka tixraacno ama aanu meelo kale ka soo xiganno waayo muddo 8 sanadooda ayaanu soo diyaarinaynay su'aalaha marka ma aha aqoon aanu anagu naqaanay xataa intaanu naqaanay way dhaaftay anaga laftayada ayaa wax ka kororsanay qaybo kala duwan buu barnaamijku ka kooban yahay qaybi waa su'aalo diiniya oo aan ugu talagalay taariikhda islaamka in laga barto
abwaan maxamed bedel aad iyo aad buu mahadsan yahay qaybihii dambe ee xafladeena ayaynu kusii siqaynaa agaasimaha tv-ga maxamed xasan cali weji isagu inoo soo xidhi doonaa balse markan waxaan u yeedhi doonaa maxamed sulub oo ka socda jaamacadda hargeysa isla markaana ah madaxa xidhiidhada ee jaamacaddaasi waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin marka koobaad waan salaamayaa madaxda kala duwan bahda saxaafadda abwaanada kasoo qayb galay daahfurka sanad guurida tobnaad bay ratay barnaamijkan kasmaal sanaan kadib waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo aadna u bogaadiyo shirkadda Samtel oo sanadkii tobnaad wada barnaamijka kasmaal oo dadweynaha kala duwan ee Soomaaliland iyo Soomaalida kalaba ay ka faa'iidaan macrifad guud ama aqoon guud macrifad diini ah ama aqoon diimeed iyo aqoon dhaqanba shakhsi ahaan waxaan ku ahaa dadkii ku xidhnaan jiray kasmaal aadna waxaan uga faa'iideysan jiray aqoonta xagga dhaqanka ah baan uga faa'iideysan jiray ardayda jaamacadaha laftooda dee aqoon guud oo aada u weyn oo dhaqankii iyo diintii iyo taariikhdii ahba oona markii hore hayn bay ay aada uga faa'iideen wuxuu soo xasuusiyey barnaamij la odhan jiray man sarbax milyon oo George Qadax halkaa ku jiro Cabdirasaaq Kasmaal min la odhan jiray George Qadax uu tabin jiray oo aada u dhisi jiray macrifadda carabta wadamada carabta ee inta badan laga heli jiray markaas su'aalo diyaarsan sidaas oo kale kasmaal oo kale ayaa la weydiin jiray incentive ama reward loo qofku qaadan jiray su'aalaha garta marka barnaamijkaas oo aad ugu eegyahay wuxuu kaga duwan yahay sanadkan sida noo sheegeen madaxda Samtel inuu live noqonayo oo qofka isagoo gurigiisa jooga marka qofka studio lagu soo casuumo laga yimaado guriga isagoo qofka guriga jooga in laga duubayo marka waa barnaamij aad u wanaagsan weeye halaga faa'iideysanaya insha Allah waxaan kusoo gabagabeynaya maadaama la yidhi hadalka lasoo gaabiyo inaan mar labaad u mahadnaqo una bogaadiyo shirkadda Samtel dabcan barnaamijkan hore wuxuu ka mid yahay waxa la yidhaahdo social responsibility ama mas'uuliyadda ijtimaaciga waxaan tusaale u yahay inaanay shirkaddu aan waxba ka iibin dadweynaha ay wax ku soo celiso oo mas'uuliyadda ijtimaaciga ama mas'uuliyadda bulshada ay hayso oo dadkeedii ay dhisayso dhanka aqoon ahaan iyo dhan kastaba aad baan bogaadinayaa abwaanada kasoo shaqeeyeed in la aqoon in iyagu TV ka soo baxay in sawirkooda la aragna oo abwaan shaacir iyo abwaan maxamed bedel aad baan iyaga u mahadnaqayaa kulligiin aad baan ku mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabada xafladeena ayaynu taagannahay waxaan u yeedhi doonaa maxamed xasan cali weji agaasimaha tv-ga qaranka jamhuuriyadda Somaliland الرحمن الرحيم رمضان كريم انت هو ذي قطع ونسا عدكيغو يوم مقالكيغو سو غاريو انت الشركه اللي رفض ذا انا كسو قيبك شيف فريتانكا برنامج كان حيسهل عليك اسمال waxaan leeyahay aafaa jirta adduunka taagan oo ah coronavirus ilaahay waxaan ka baryaynaa in ilaahay guud ahaan bini aadamku dhanba ka badbaadiyo inta islaamkaana ilaahay uu dul mariyo Somalilandna ilaahay aanu keeninba ilaahay naga hayo meel kalena waan kaga duceeyay ducada hadda aan ku ducayn doonay waxaan leeyahay Allah ayo naga qawlo Allah ayo naga qabo oo naga qawlo Allah ayo naga qabo oo naga qawlo waa coronavirus ka dan ka gudbo ilaa hadda meel fiican bayn maraynaa oo dadaalkeena ilaahay ha nala qabtay ma yeela dadkana waxaan lahaa u dhagan nuglaada waanooyinka ay soo jeedinayaan wax garadkiina iyo mas'uuliyiintiina oo maqla talooyinka inkastoo dhib nagu tahay barnaamijkan hadda aan soo gudan noqdo waxaan jeclaan lahaa inta ka shaqeynaysa inaan guud ahaan amaano waxtarka ay barnaamijka u soo geysteen iyo halkay soo gaarsiiyeen intay dhageysanaysaa waxaan lahaa isu quudna amaanta qof walba wuxuu gaadho ee uu qabto ha u quulo ka kale Cabdirasaaq waxaan leeyahay hambalyo barnaamijkan waad ku soo baxday telefishinkeygana waad ka tirsan tahay kana waad ku tirsan tahay waa kugu faanaynaadeer halkaa ka sii wad baan leeyahay haddaan u soo guda noqdo barnaamijka iyo waayihiisa iyo maanta telefishinkeena qaranka wuu ka baxayaa telefishinada kale la tirinayo hadda aan jeclaan lahaa inaan wada tiriyana ma wada xafidi kare raalligaadeene waxaan leeyahay
way naga dhaxeeyaa barnaamijku shaqaduna way noo dhex barnaamijka hadda taariikhdiisa in yar laga raalli haataan galo macallinkii ugu horreeyay professorka waa runtii qadaaxi halkaasuu isagu ka bilaabay laakiin waxaan moodaya barnaamijkan inagu ka hor bilownay waxaynu odhan jiray kadis barnaamijkan waxaa la odhan jiray kadis idaacadaheennii baa u hor bilaabay radio hargeysa oo kow ka ahaa ayaa bilaabay waxaanu ahaa barnaamij aynu ku tartansiino ardaydeenna oo weliba ay waxbarashadu leedahay oo jamcayaasha la qabto oo runtii aqoon badnaa waxaa ka sii horreeyey dhaqan ahaan oo aynu lahayn oo aynu barnaamijkan ku qabsan jiray gaafafka miyiga marka laysu yimaado gaaf walaa waxaa laga yaabaa ereygaa laftiisa inaa ugu dartaan dhallinyarade qaar baan garanayna gaafku waxa weeyaan marka aroosku uu marayo biigiisa ama 7 ha noqdo ama 3 ha noqdo intii lagu qabanayo habeenka cawiiska la caweynaya runtii gaafka xafladda weyn loo qabanaya inankeenanta marka kadiskaasi halkaas ka dhici jiray oo su'aalo la isweydiin jiray oo ragga qaar markaas waxaynu u lahayn dhaqan wagaag daawadayaal mar kale ayaan idin leeyahay Ramadaan Kariim inta haddaan kaga nimaadna mas'uuliyiintaas iyo khudbadaasi aan ugu talagalay dabcan in barnaamijka ay furitaan u noqoto iyadoo sidaan tilmaanay ay markaasi in xakameyntaas iyo qaybahaas uu kamid ahayd yareynta barnaamijka waxa sidoo kale barnaamijka marka laga yimaado maanta dabcan isagana online aan idigu soo gudbin doonaa maanta oo ay furitaanka barnaamijka ahayd waxaan koobi doonaa oo fursad aan siin doonaa dadka tartamayaasha ahaa oo nagula sugan stuudiga oo dabcan iyagana shuruudihii la marinayo amarinay kala fogeeyna qofka tartamaya mooyaane inta kalena dabcan aan isku dhaweyn oo tartamayaasha khaliyo una imanayaan oo dadkii kale ee caawinayay iyo intii kale ay maqnaanayso waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Kasmaal oo dabcan si toos ah barnaamijkiisa koowaad ka noqon doono hadahan oo kalena habeen kasta oo Ramadaana aad si toos ah nogala socon doontaan telefishinka qaranka Soomaaliland badda cas telefishinka bulsho sidoo kale Horyaal TV ee nagala socon kartaan Sahan TV ee nagala socon kartaan Sam News ee nagala socon kartaan iyo telefishinka kale oo soo biiri kara dabcan intaan hawada ku jirnaba True Cable TV oo isaguna cid kasto haysata isagana ay channelkiisa si toos uga socon karto Radio Hargeysa oo codka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isagana barnaamijkan ka dhageysan doontaan Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka Kasmaal كنت أنا سمر كان أقول ويا ترتمها برنامج كأن قدونا عبد النجيب يوسف عبدي وبرنامج كان ترتمها كواد برنامج كان قاضية عبد الوهاب رمضان كريم كسر برنامج كسمع وندر واحد فرصة ولا هاي وترتمها شيء قد وانت هاي قف في كواد بشهر رمضان السنة ده لبض خلية لبعض قريب قراء آيات برنامج هرمو برنامج تعرف نشيو برنامج داون إلا بلوغيسي سارتشيني ونداون شري برنامج ما تتبصر أي سعودي وقت روتسي بدار نصيب بعض يارتينا سنة كتبنا سنة جوريسي يقف كواد بعد نقطة هم بدي أقول بسم الله عبد النجيب مراد كورت عليك وأنكو بلا بدونا سؤال شكوبات وحي كورنا صار dadkii ugu horeeyay ee sigaarka cabaa waxay ahaayeen dadkii ugu horeeyay ee sigaarka cabaa waxay ahaayeen ba ruushka ta hindida cascas ee dalka Mareykanka ja ingiriiska ha Chinaha dadkii ugu horeeyay sigaarka cabaa inuu weydiiyay su-aasha jawaabta haddaan isku dayo waxay noqonaysaa ta hindida cascas ee dalka Mareykanka ta oo hindida cascas ee dalka Mareykanka inaad laba ka tuuro oo fursadii laba jeer harsanaa iyo inaad weydiisid cid markaas aad u sigaarka ma cabtaa may weli ma cabbi awlina ismandi marka qof sigaarka cabaya garaaci karnaa oo laga yaabaa inuu isagu akhriyay ama macluumaadka hay inaan qofka la hadasho inaan ku adkeysano inaan laba ka tuuro inta baadaas kale aan ku adkeysanay wahagaag dadkii ugu horeeyay ee sigaarka cabaa waxay ahaayeen ta oo hindida cascas ee dalka Mareykanka goonkaaga u dambe ta oo hindida cascas ee dalka Mareykanka jawaabta su'aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaas ayay صح كتاي
su-aasha labaad waxaynu odhanaysaa maraayadda koorta alleeg cabdinajiib su-aasha labaad afrikada madow dalkii ugu horxoroobay waa afrikada madow dalkii ugu horxoroobay waa ba gabon ta gambia ja ghana xa guinea afrika dalkii xornimada uga horqaatay afrikan ka midnahay soo maa inagu xornimadii goormaan qaadanay waxaan qaadanay 2 goor baan qaadanay tii hore 60-giiba tama soo celinayno 60kii ay naga horeeyeen markaa kuwa sidaad way ka horeeyeen Somaliland 40 dale inoo qoran laba kamida ayaan jawaabaha su'aalahaasi ka tuuri doonaa waxaa isku soo hadhay afrikada madow dalkii ugu horxoroobay waa ba oo gabona iyo ja oo ghana labadii aad ka shaqsineed baa isku soo hadhay laba ga-wey يا عبد النجيب قوان كقال noqonaysaa taan isku dayo jawaabtaasi ba oo gabona afrika dalkii uu xoroobay ama xornimada ugu hor qaatay waa ta ba oo gabona waad ka sansa ta oo gabona ka nimaadna ja oo ghana ama nimaadna waad ka sansa gabon weli ma tigin ghana ma tigin laakiin taariikhda ma ku maqalna go-aankaaga u dambeeya haddaba ja oo ghana afrikada madow dalkii ugu hor xoroobay waa ja oo ghana jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha saddexaad baan soo gaarnay oo soo dheereen su-aasha saddexaad waxayna odhanaysaa qofka qaangaarhka ah tirada lafaha dhabarkiisu waa qofka qaangaarhka ah tirada lafaha dhabarkiisu waa ba 15 lafood ta 30 ja 33 xa 20 xagga caafimaadkeena la gasho soma xaggan dushana lagama tirin karayo haddaan sidaa ka gaadhsiiyo lafaanaba kama gaadhsiino dadweynihina caawinaya maqayn laakiin qof dhakhtarama garaaci karana hadda inuu fursad u leena inaan la hadalno cid inaan laba ka tuurnaana wayna harsantay cabdinajiib yuusuf go-aanka gaad su-aasha jawaabta balimkan laba iga tur laba ka mida ayaynu ka tuuri doonaa waxaa isku soo hadhay qofka qaangaarhka ah tirada lafihiisu waa ba oo 15 iyo ja oo 33 su-aasha jawaabta isku dayo waa ba oo 15 ba oo 15 33 way badan yihiin sama ja baan ku days ja 33 ja oo 33 lafood baa dhabarkeena isku xigi karaya sama markaan tirada qofka qaangaarhka ah lafaha dhabarkiisu waa ja oo 33 saa dhakhtarka garaacna kuwaad ka sadna qofka qaangaarhka ah tirada dhabarka lafihiisu waa ja oo 33
jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay waan sigan way fara badan yihiin laakiin su-aasha afraad afar baan soo gaarnay su-aasha afraad waxayna odhanaysaa xayawaanka leh in ka badan hal calool waa xayawaanka leh in ka badan hal calool waa ba iyo xaaska ta libaax badeedka ja nooc ka mid ah nibiriga xa casaanyada ja oo nooc ka mid ah nibiriga inaan laba ka turna inaga dhammaadeen hal midun baa inoo harsano inaan qofaa su-aasha ku tumaysa la hadasho dhinaca badda joogo kala garanayeenu بدماح ضوء في نوكات كسنس قوان كاقو دنبي قوان كاقاد وجاء النوع كميدة النبري جاء النوع كميدة جوابت السؤال شاسيين وديقي دونا حيوان كله إن كبضان هل علول وجاء نوع كميدة النبري جوابت السؤال شنا سيدا سيايي صح كتاي هذا الشيء waxaan soo gaarnay 5 kala barkii aan soo gaarnay su'aasha shanaad waxay noo oranaysaa wadanka Jarmalka nidaamka lagu xukumaa waa wadanka Jarmalka nidaamka lagu xukumaa waa ba hanti wadaag ta jamhuuri ja dimuqraadi ha kalitalis سؤال جوابته اسكت ضيق وجاء الديمقراطية جاء الديمقراطية شرملكا انقرا مالك رياء كان معك جوابت السؤال شاسيين وديقي دونا ودنك شرملكا نظامك لغو حكوما وجاء الديمقراطية وكوات كسانسا دوان كاقو دنبيا جاء الديمقراطية وديقي دونا جوابت السؤال شنا سيداسي غلط كنت هاي وجمهوري هذه هذا لو صعب يمين ولا سنة يسوق عنك كلا بركي بين قاني هذا ما سنتين لبعض برنامج كترتبه لبعض برنامج واحد ونقول دونا مصطفى علي عبدي مصطفى علي عبدي الله صعب السلام عليكم مصطفى علي عبدي وعليكم السلام عبد الرزاق كوسو دو برنامج كسبان السودة ولا مصطفى واحد وبحين السنة أرض هاي الكاد دقنت أنا قد وشوي أنت معلومات نسيكرت ولا واحد دقنا حافظ حراور أرضنا وأنا هنشري لكن كمية ما شاء الله مصطفى إن البرنامج كان هرو دعوتيين كذا مهرون دعوتي برنامج كود دعوتي برنامج هرو إلا سنة دهر سوس برنامج كان تقريبا شوات شعلان شركة إسقاسين تسنت مع مشا كت داي نصيبك كوسو حولي واحد أدو حسناتها ولا بشينا من لبكة توري دونو ددويني فرح بدنا من بابين نحدنا هاي سوي قتان كودي أنت سوي نجيرين بيمك صح نجي كمردنوي يو لو قطر تميك الفوق كونياش فرديا هدي نقعد كاتو من لبان كاتوري دونا هل فرصة كلنا وحين عاون دونا قفت قرنا سيو تليفون فرصة كوسين دونا بسم الله وانكو بلعب دونا مراد كورت هلاك سؤال شكوباد وحي كورنا نسا boqortooyadii Faris ee xilligii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxa ay ka talin jirtay dalka maanta loo yaqaano boqortooyadii Faris ee xilligii rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee waxa ay ka talin jirtay dalka maanta loo yaqaano ba Iran ta Suuriya ta Sacuudiga ha Masar بسم الله عبد الرزاق السؤال جوابتي هذا نسخديو waxay noqonaysaa ba oo Iiraan ba oo Iiraan in laba ka tuuro iyo in hal qof la hadalo Iiraan haduu doonayo jooge aan ka si xaqiijino oo fursadayna banaa مليون كود كسان فارس وهبتا وهاجاك داوديال جوابت السؤال ayeen wadeegi doonaa boqortooyadii Faris ee xilligii rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee waxa ay ka talin jirtay dalka maanta loo yaqaan ba oo Iiraan
jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa hay-adda UN waxa loo soo gaabiyey UN waxa loo soo gaabiyey hay-addaasi ba United Nation ta United Nation ja United National ha United Nations. بسم الله عبد الرزاق السؤال جاوبتي هذا اسكو دايو waxay noqonaysaa ta oo United Nation ta oo United Nation United Nation inaan laba ka tuurno waxaan Unitedadii baa isku barabatay iyo inaan qof United Nation ka jeegno la hadalna labadu way noo banaan baadii taadorta isku mid بعد هذا سقط في سنة درسها هذا هذا سقط في سنة وأجاك جوابت السؤال شاسين وذيك دونا هايدا UN وحلوسو قابية تأوه United Nations جوابت السؤال شو نصيدا سايي صح كتاي مصطفى سؤال صدحات وحين ورنا نسا maalintii nebi muuse calayhi salaam ilaahay badbaadiyey waxay ahayd maalintii nebi muuse calayhi salaam ilaahay badbaadiyey waxay ahayd ba cashuura ta salaasa ja jimce xa carafo waatii fircoon iyo ciidankiisu kusoo duuleen nebi muuse iyo intii qoomkiisa la socotay بدأ سوق قبتي قرآن درب كورما بدأ إسلا فرعون كيرين يبا سجل لفتي اسمه بقرقام قصص دار ما أنت هم حال إلى هذا أمريكا بسم الله عدنا سؤال شفت السوداء عبد الصقع نغنصة با يوم العاشورة با عاشورة إن الله بك تورنو يددوينه وين جنب قيه هنا الشيخ المساجد سواء قراءة كنا نفتك السماء كلام اسمه به يا الشيخ لم يسمعش بعدك دين دقيقة أسألك كوني ليه طبعا نقعد كتادين وكرنا إنه إن شاء الله ونقعد كسرنا قعد كسرنا بعد أصلا قعد كسرنا ولا قام كاقو ضمي بعدك سيد عبد الصمد جوابت السؤال شاسعين وذيك دونا مالنتي نبي موسى عليه السلام إلى هيبة بادي وحاي هايد با عاشورا جوابت السؤال شو نصير ساعي صح كتاي مصطفى أفر بس وقال السؤال أفراد وحين ورنا سائق مراية كورتالا حيوان كصدح دا ودنا له بدا كوتشراوا حيوان كصدح دا ودنا له بدا كوتشراوا با وبدا تا نبريغا شا عسان يدا ح يحاسك وري مصطفى بدأ سياس كتير هرتنيو بدنا هرومنتين موقتها ما دبرت ورطة هذا الحس دي وحاول تعلم لما بيجي لكن بدأ بدقل بدو المكان في عتة بدأ سوق الشدوا على بدو في عتة إن صارت دباشر ولا قبرتها حكون نوع الخلاق فرا بدنا هذو كل هذا حيابها هنا قد دعوانا قرنا يعني هي مساشة قرنا سيف عم بقرنا يعني لكن ده يجي قبل الله هلا ده إنه كلفته إن على بكرة تورنا لكن وينه هاي السنة مساشة على بكرة تعالى له لما كم إذا أيام كتوري دونا جوابها سؤال شخصي واحد سكسو هراي حيوانك صدح دودنا له بدأ كشرا وبقى وبدأ يشاء وعسان يدا لبدا سادة صورين لبدا من هورتا ما درك سما هورتا بعض هورتا ما أرك عسايدا لكن تيفيقون كاركن بدن waxaanu qaadananaa ba'daasaan qaadanaa qubada cid xeebta joogtoon garaacnana ma garanayno soo taan ma garanno go-aankaaga u dambeeya
وني عصايدا صار لو بدن ولا تصور نهر بدني تاكوي جدا ميو لو بدني لنا ويدينا ودني بينا ويدي بلا يوم باودنا يا وقت وانا نقول سعوداء قوان كاقو دنبيا مصطفى بسم الله جدا كويك جاء عصايدا عصايدا قوان كاقو دنبيا كانوا قاعد يساق بعض كويك أو قبضة أو قبضة قوان كاقو دنبيا بعض كويك بس كانوا قبضة بعد سامبس كاقو قبضة قوان كاقو دنبيا مراد كورتا عليك بعد كنت عاد تساوي بابا كدينا بسم الله حيوانك صدح لودنا له بدا كجرا waa ba oo ah qubada jawaabta su'aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay waa ja oo casaanyada hada lagu saabiyay meel wanaagsan soo gaarnay waxaan doonaa asay وهاجاك داود يا الكورنتي ونكسن أيام مركلة يدلي ولي برنامج كسمال أيام كوجود الشرنا رمضان كريم وحنو يري دونا ترتماس هذا برنامج كترتماس هذا برنامج وحنو نقول دونا محمد عبد الناصر محمد عبد الناصر الله صعبية السلام عليكم محمد عبد الناصر موسى عليكم السلام كسر برنامج كسمال كله بين محمد عبد الناصر برنامج هو وداود سمع معلومات سو كدغ سنتي واحد وربixin naga saa halka aad degan tahay inaad arday tahay anigii daawadaasho inta macluumaad na siin karto bismillah waxa ku noolahay magaalada Soomaaliya Hargeysa markaas aan kulash ardayna wana ma sha Allah maxamed Naasir waxaad aad u xasuunataa bishii Ramadaan oo guda jirnaa wacyigelin fara badan oo xanuunka coronavirus-na waa jiraayo faraxalkii xaal xoojiya la macluumaadka maxaad kala socotaa أنا صباح. أقصى قاعد فريد. معك هاي أنا في كل حديقة بعصنا. ذكر روح علينا قرينا سكتشوجو أنت ترى قد جانا قاعد طبعا أنت النوع يقول نقد من كلامنا. لبتشر من لما كاتوري دونا شراد ديك وقت هذا. لبتشر هو كم بدنا تدوين هاي نعاون شو لما تمت شوغان لكن فرصة حكوسين دونا إنه تليفون كل هذا الله. هدي أنا وباها نبأ. محمد ناصر مراد كورتا بسم الله وانكو بلعب الدونا سؤال شكوات وحي كورنا مثلا سؤال شكوات ودنكii ugu horeeyay ee ku guuleystay koobka qaaradda Afrika waa wadankii ugu horeeyay ee ku guuleystay koobka qaaradda Afrika ee kubadda cagtu waa ba Suudaan ta Morocco ja Masar ha Koonfur Afrika ciyaaraha sidee isku tihiin ciyaaraha waan ciyaari jiray laakiin hadda ma ciyaaro marka ka nasatay ka fariistaa daawashadeedana waa waan daawataa marka koobkii Afrika aynu weydiiyey markii ugu horeysay la dhigay wadankii qaadayba koobka inaan laba ka tuurnayo inaan saaxiibtiina kubadda isku wanaagsan inaan la hadalnayo intaasi waa fursada inaysan jawaabta haddaan isku dayo waa jaada jaado ah masar koodka saasa jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa wadankii ugu horeeyay ee ku guuleystay koobka qaaradda Afrika waa ja oo masar koodka saasa ja oo masar ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay محمد عبد الناصر سؤال شلبات وحين ورنا سأق مراد كورتا على سؤال شلبات مالنت عشوري كوذا بش محرم تا لبضا بش محرم شا طبنك بش محرم ح سقالك بش محرم يوم عاشوراء مركورنا ولا الويد يوم مالنت سي واحد با نري فرعون لها اللي جاي موسيقى مكيسو أي بدبادة مركب محرم قول ميك النقنصة مكودي هذا ملبدي هذا متبن كذا مسجال كذا والله الصوم ما أنت سمعت والله الصوم ما صوت بركة ليه هرنا سوي يمكن سومي دون هذه لا ينقرسي والسنة هذا قولي
marka inaan laba ka tuurno hadday maalmo isku dhadhawaadaan ها لبا يكتور iyo inaan qof garacno labadooda لبا يكتورني laba ka mida ayaan su-aalahaasi ka tuuri doonaa waxaa isku soo hadhay kowda muxaram iyo 10ka muxaram marka carabi ahaan baa haddii loo tiriyo 10 manaa tiri ka noqonaysaa لا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هذا طبعا كبش محرم 10ka bisha muxaram kuwaad kasaas يا jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa maalinta cashuuri waa 10ka bisha muxaram jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay waa 10 waa tobnaadu su-aasha saddexaad waxayna odhanaysaa dowladdii ugu horreysay adduunka ee gaasta sunta ah dagaalka u adeegsataa waa dowladdii ugu horreysay adduunka ee gaasta sunta ah dagaal u adeegsataa waa ba maraykanka ta faransiiska ja ingiriiska xa jarmalka maxaa abdinaasir jamaal cabdinaasir ma walaalaatii mise qof jamaal idhaa mise magac ma soo galay magac ma soo galay jamaal cabdinaasir masar baa soo ma waxaan hadii isaga jamaal mid kale ama jiro jamaal loo bixiyo isaga loo bixin lahaa عامل فيني صوت maxamed cabdinaasir سؤال جاوبت اسمه طيب inaan laba ka tuurnay dadweynihina بعض مريخ ba oo maraykanka dowladdii ugu horreysay ee gaasta dagaal u adeegsataa ها hal mar inaan laba ka tuurnaa markii hore waa inaan caawisay iyo hal mar inaan qof la hadalla iyayna horeysa اي فاتك سنه qaadka saasa dowladdii ugu horreysay inaan weydiiyey lacalla inay maraykanka tahay laakiin haddaynu laba ka mida ka tuurno waxaa laga yaabaa inuu si kala fududaato تن فاتك سنه haddaynu qof maraykanka jooga weydiinana waa suuragal in lagu dhaha maraykanka muu hayna anaa jooga مريخ لا برنامج marka laba ka mida ayaan kusii fududayno hadday sax tahayna maraykanku waa soo hadhay waa suuragal hadday qalad tahayna ina meesha ka baxso وقت راي laba ka mida ayaan su-aalahaasi ka tuuri doonaa maraykankii wuu ku daayay adoo yar xanaaqsan baad laba ka tuur lahayd waxaas tahayd muxuu fursada kaaga luminaya laakiin laga yaabaa iminka inay suuragal noqoto inaad kursiga la sii fadhido waana sababtan هذا جمال xa oo jarmalka go-aankaaga u dambeeya هذا جمال waagaag jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa dowladdii ugu horreysay ee adduunka ee gaasta sunta ah dagaal u adeegsataa waxay ahayd ja oo jarmalka jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha afaraad waxay ku odhanaysaa maskaxda dadka qeybta aragga qaabilsani waxa ay ku taallaa maskaxda dadka qeybta aragga qaabilsani waxa ay ku taallaa ba qadaadka ta fooda ja indhaha gudahooda xa mandhuulaha aragga berigii dugsiga shanaad baa lagu dhigi jiraa aan malaynayaa sameeyaa biologiga marka laga sheekeynayo aragga iyo muraayaddu sida wax kala fooriso iyo marka go-aanka gaadh way naga dhammaadeen inaan laba ka tuurna dadweyne baynu harso axmed cabdinaasir تدوينه يقول ملا dadweynihii maanta lama joogaan inaan toos u garaacayno gurigii baa la yidhi jooga dadkii soomaa waa soo bixina corona virus baa jiray maa gurigeen ugu tegaynaa qof aad garanaysid baynu la hadli ood is leedahay macallimiintii biology dhigaysayba ahaa ama waa garanayaa waayo araggani oo inagii ku dhigan jirnay iskuulka xagga dambe ka yimaada deetana sawirku muuqaal kuu rogayaba qofku foorara kadib maskaxda soo celinaysa aduu cilmi fara badan buu ahaa oo ku saabsanaa biology aragga marka fursad baad u leedahay inaad cid la hadashid la hadalaa ايوه كنا قاعد تعال ta'daa dooranaysa ku adkaysanaysa عافود هذا فود ta oo fooda ah markaa foodu waa kan soba هاد ايري ده eriyadana waa sax
maskaxda dadka qaybta aragga qaabilsani waxa ay ku taallaa ta oo ah fooda qodka saasa ta oo fooda in wadeegi doonaa jawaabta su'aashuna sidaasi ayay qalad ku tahay waa qadaadka dambe xagga muaraggu ka imanaya dadna soo reesay qaybta dheeraad balaada lagu saabiyaad ma maasantahay وهاجاك داوديال أنت كأني ما نترتمياش هدي الله يراهدو برنامج كذا حجنا هل كان أيان ست توصى بدوينها ملك شو يكون سجينيين ما دام أو كرون فلس جريا شو كذا يدي تذكر بدنا نسكي منين هل كان أيان كلا حديد دونا أنه ست توصى جريا هو ده يجوبه هو ده أمريكا سكوا سجينين هل كان ست توصى وجدين دونا هسه يشهد واحد يسوق هذا وقت كان يسوق جندين شني ويدين تأدور علين تكسر سمين شتين ويدين تعور علين تكسر سمين دونتان واحد نقون دونتا سؤال عن فقرا واحد سؤال شو يدورنا سام دولتها إسبهايسيغا وارسو تيرادودوا دولتها إسبهايسيغا وارسو تيرادودوا سغال دولدود oo baa taana wax weeyaan 8 dawladood jaana wax weeyaan 10 dawladood xaana wax weeyaan 20 dawladood marka la aan ku celiyo dawladaha isbahaysiga waarso tiradoodu waa 9 dawladood oo baa ta oo ah 8 dawladood iyo ja oo ah 10 dawladood iyo xa oo ah 20 dawladood waxa aad ku soo diri doontaan jawaabta saxda ah lambarka gaaban ee 822 ayaad ku soo diri doontaan ba ta ja ku sax ku yahay kadibna hadii alla yiraahdo qofka marka safarku uu kala xulo nasiib u yeeshay inuu noqdo qof ku guuleystay in halkan abaalmarin ku soo siin doona meel kasta oo joogtaan waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim barnaamijka Kasmaal oo aad kala socoteen telefishinada kala duwan iyo radio Hargeysa waa naga intaasi hadii alla yiraahdo intaan barnaamijkan oo kan oo kala isugu iman doona isla xilligan islaamintan iyo isla waqtigan waxaan aad ugu mahadcelinayaa akhyaarta magacadooda xagga dambe ka soo bixi doonaan iyo real video isku dabaridka barnaamijkan iyo soo saaridiisa qaybka Ramadaan Kariim assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh صحو مقل صافيو أسألو لهين صمتا فوقو هاجان تليفون صحو مقل صافيو أسألو لهين صمتا